xubinteena riyo raaciyo ruuxa weynaya waxaan leeyahay madaxweyne ninbaa habeen baa oday yiri ilmo yar ku qeyriyay islaamtiyo seexan waayo markaasuu yiri la waraabaha inooga tuur waraaba halka soo taagan soo taag islaamtigaas ay tahay alla aanu tuura waraabaha qoodha iyo xeerada waa kuwa isku raacay buu sidii u taagnaa ayaa waagi bari oo nimayow awgeedka waa doonaya abiyo waa doonaya hooyadiina waa doonaysa maxaas cala taray teena kiirada soo bixi waay ila been sheegaya madaxweyne adigu waa commission cusub ee qabto waa golaad xisbiyada mucaaradka waa golaad guurtu waa golaad baarabo dadku waa soo wada golaad waxaan kolba hadana marayo dib u celinaya waa maxay seena ka yar runbaa deel isu sheegay waxaan ku leenahay niyaw madaxweynaha wadankan sidii markay wada aragtaa sidoo Soomaaliland ku nahay waa dugta anagu waxa de hadal wax sheegma inaan wax tilmaanaba leen waxaan ku leenahay sanad iyo barba doorasho dib u dhacday imikana sanad iyo bar kale ku socotaa si gaari mayso Soomaaliland sanad iyo bar dambe oo bilaa doorasho ma gaarayso oo kuraasta lagu fadhiyo maayo dawladdu jiri mayso wadanku hadduu sanad iyo bar dambe ama sanad dambe bilaa doorasho noqdo waayo waxa lagu kala dambeeyay dawlad lagu yahay baa waxay timaareeyeen doorashada lagu kala maareeyay ku joognaa maanta waa baliyada bala doortay maadana baliyada bala doortay hadana ka bedel ma wixii hadana baliyada bala doortay ruuxan ku leenahay doorashada labada ruuxa weynada iyo Mikaayil riyo raac bedel laba kale kamaad waayay Soomaaliland laba qof oo kale keen hadlagu sidaasaan kugu talana hadalka Cabdiraxmaan Cirri qudbisanku annagu haddaad keen weeyo sidaad yeel weeyo bedel weeyo halka aqbal weeyo dawga annagu geestayadanu halka Cabdiraxmaan Cirri loo jeexay wadada loo jeexay ma anagu cagta saarna waxa imaka aad iyo aadaanano habeenkii uga seexano aan xoqdaa war 3 sanadood dalka ku jirteen ay isugu soo hadheen istoorateena madaxweynuhu ka dhashay madaxweynayaashu maxay idin kordhay maxay idin ka dhacay waxaan qabaa inoo wixii laga dhacay ma waxba inoo kordhin dadkii wuu kala fogaaday way soo calool xumaaday hareeraha waxa ka dhacay hadiyo jeeraan waadiyo galbeed dab ka baxaya bari mid baa ka baxaya koonfur mid baa ka baxaya madaxweyne waxa loo baahan yahay de waxa soo dabo inugu baxay dab gudaheena inuu ka baxaana ma wanaagsana waxaan maqlayaa waa bariye iyo gobol dhacayba waxay saystaa madaxweynihii iyo gudoomiyihii xusbiga ayaa isaysta Abdullaahi Cirro maxay isku haystaan baleeyay waxa isku haystaan kuma shirkii oo marka hore Abdullaahi Cirro wax ka sheeganayay waxay wadaba lagu heshiiyay in ku shirkaan la bedelo haddana waxa la leeyahay saaka waxa la isku haystaa laba xubnood oo midba sharcigu uu ka mamnuucayo inuu meesha soo galo oo marka hore halkan xusbiga ka tirsanaa marka dambe ka kale u wareegay iyo xubinku shirkii hore laga soo celiyay dadku wuxuu is weydiiyay maxaa laba xubnood madaxweynaha ugu jira ummadda is weydiisay rag baa yiri de mara madaxweynaha faali waxba lagu sheegay cid baa joogtay mara faal baa soo celiyay iyo saadaashan haweeney la sheegay ilaa halka dabir idiga soo galaysay iyo balaa idiga soo galaysay madaxweyne dadka waxa leh oo waxay haddana leeyihiin oo madaxweynuhu miyaan xusbiga qudhiisa iyo Cabdillaahi Cirro isagu madaxweyne u ahayn miyaan loo dhaarinin ma dhaartii baa laga daayo wax xusbiga lagu dhaarin maayo hadda dadka is weydiinaya ma wax leeyahay waa loo dhaariyay waday sidaa tahay maxaa ugu jira leeyahay madaxweynaha markaa wala garanayo waxa ugu jira
madaxweyne marka laba nin loo garnaqayo ninku wuxuu iska reebaa wuxuu deedafeeyaa ninkuu isleeya ninkaasi markhaati beenaanuu kugu furaya wuxuu dhaa ninkaasi hebel aniga wayga deedafo maragiguma furo guddiga ninka ku jira is yidhaha ninkaasi maragu kuu galoocinayo wuxuu dhaa kaasi guddida ima galo waa iga deedafo oo labada xubnoodba haddii la deedafeeyey sharciga iyo xirsiga iyo xeerka islaamku saddexduba waa isku ogolyihin inaanu soo noqon waxa u maraga marka maxkamadaha la isla galo guddoomiyaha garsoorka ninku markuu garo waayo kiiskiisa wuxuuna waa ku duray waradahaysi iyo mid kalu ula tagaa war labada xubnood way duran yihin madaxweyne sideeday u duran yihin waa la deedafeeye saddexdaasi markay soo dayn waayeen halkee laga soo daynaya maxaase adiga kuugu jira war waxaan leeyahay madaxweyne ummadana u dan maaha 5 sanadood imaka 2 bar baad maraysaa intanay kaaga dhamaatay adii cabdilaahi ciray ku dhamaatay waqtigii adii cabdilaahi ciray ku dhamaatay waqtigii aad lahayd 2 sano iyo bar baa ku haray ummadii looma shaqayn adigu maad shaqaysan oo ajariyay iyo abaal toona maad shaqaysan intanay kaaga dhamaanaysaa waxaan leeyahay madaxweyne bedel madaxweyne dalka u tahay oo ka dulqaado waxaan oo dhaaf adigu ilaahay ka xishooda waarubadkiina u tudha waaru tudha haddii baydankeeda leeyahay islaamnimada u tudha ilaahay ka baqa kitaabka amarteen taxgeliya waa inta xukunka inoo haysa mid dhaama male waa wada riyo raac kan imaka la eedaynayo la leeyahay riyo raac baa la yidhaa waa isku mid wax alla waxay isdhaamaan male waxaad odhanaysaa inkaartan Somaliland ku dhacday waa maxay ayaa odhanaysaa markaan fikiray waxaan idhaa waar inkaar baa Somaliland ku habsatay inkaartu xagga idinka soo raacday min balli ku kaliitay ayaa xukunkii inoo hayo kursigii inoogu fadhiya komishinkii hore la bedelay burcad buuha burcad waxay isdhaafiyeen doorashadii bay isdhaafiyeen niman dhinac u shaqaynayay bay ahaayeen waxaanu doonaynaa dad ilaahay yaqaan oo la soo xulay oo aan u kala yeexanayn Somaliland in meesha la keeno ayuu shacabku doonayaa riyo raac la yidhaa riyo raac waxaan odhan lahaa madaxweyne ninkaan riyihii u dir riyaha uu kaga magac baxay u dir adigu waxa weeye ninkan la isku hayo waxa la isku riixayo heerade si raganimo leh oo geesinimo leh ugu dhiiro baan ku leenahay